الله وسلم على رسول مطلع السكرات mountain. Let's talk about what smoking cigarettes can do to your lungs. For one, smoking can cause both immediate and long-term damage. The chemicals in cigarette smoke reach your lungs quickly every time you inhale. Your blood then carries the toxic chemicals to every organ in your body. Smoking can damage and destroy cilia, the tiny hairs that line your airways and sweep out mucus and dirt to keep your lungs clear. Once you lose enough cilia from smoking, you get smoker's cough. Teens who smoke can develop smaller, weaker lungs that never grow to their potential size and never perform at maximum capacity. If your lungs can't perform to full capacity, you can't either. And the effects on lungs don't stop there. Of every 100 lung cancer deaths, over 80 are the result of smoking. Cigarette smokers are up to 20 times more likely to develop lung cancer than non-smokers. Here's the good news. If you stay away from cigarettes, you can save your lungs from the deadly effects of smoking. ma og tahay in boqolaal qof oo dadkeena ka mid ah ay sanadii kastaba ugu dhimanayaan aafada ka dhalatay cabidda, dhuuqista, ku raaxaysiga tubaakada? sanadiiba 6 milyan oo qof baa caalamka u dhinta tubaakada darteed. dadka iyaguna waxa ay ka mid yihiin tirada nambarka ah ee sanadii kastaba u dhimata tubaakada darteed. dadka iyagu waxa ay cabaan ama ay dhuuqaan ama ay cunaan tubaako noocyo badan uga timaada. mid ay calaliyaan oo ay dhuuqaan, mid sida sigaarka sigaarka ay ugu timaadaa ee caanka ah. electronic cigarettes-kana waa hadda aalad cusub ee sanadii ugu dambeeyay dadku ay isticmaalayeen, Soomaalida gudaha iyo dibaddaba. iyo shiisha oo iyana runtii noqotay nooc cusub oo dadka iyaga tubaakada ay ku cunaan. intuba waxay dhaxal siinayaan kama dambaystii dhibaato badan oo aysan warba u hayn. dhibaatada ugu horeysa ee aan ka digaya waxay tahay tubaakada waxaa ku jira kiimikaal loo yaqaano nicotine. Nicotine-kaasoo runtii mid aad u awood badan ah oo addictive ah oo maskaxdana wax ka bedelaya qaab dhismeedkeeda. qofka marka uu bilaabo calaamado yaryar baa qofka ku bilaabanaya inuu ka qufaco, dabadeedna markuu labaysto oo saddexaysto u badsado, dabadeedna waxay noqonaysaa qofkii inaanu kaba harinba oo dependence waxa loo yaqaano ayaa samaysmaya. waana halkaasi meesha addiction-ku ka imaanayo ee uu noqonayo maandooriye, ayna adkaanayso qofka inuu kaba haro. ilmuhuna haddii ay bartaan waxay noqonaysaa in iyana maxaan ku raahdaa ay sidaasi u qabatimaan, ayna adkaanayso in laga joojiyo. marka qaacaan aad arkaysid ee dhuuqidda sigaarka, shididda sigaarka, shiishada iyo electronic sigaarkan dadku ay isticmaalayaan, waxaa ku jira kumaan kun oo toxic chemicals ah oo sun ah sida taarka iyo formaldehyde oo runtii carcinogenic ah. intuba markaa waxay saameyn ku yeeshaan meesha laga qaato, hadday noqoto sanka oo hawamareenka ah iyo haddii afka laga qaataba. intuba waxay ku sameynayaan waxa loo yaqaano inflammation, inay huriyaan, taasoo dabadeed ku keenta chronic inflammation. waxaa dhici karaysa in meeshaasi sida hirgabka marka ugu horeysa dadka ugu horeysa ay bilaabayaan oo qufaacad ku arkaysid. marka airwayskaasi uu damage ka gaarana oo sanbabada intaa iyo brancheska oo bronchitis ayaa dhici karaysa inay ku timaado qofka. alveoli-ga oo runtii muhiim u ah sanbabadu inay shaqeeyaanna marka waxaa dhacaysa in ay guntamaan oo ay xirmaan, taasoo dabadeedna calaamado qofka dhibaato u geysan karta dhow iyo dheerba ku imaanaysa. waxay badanaaba horseedaana lung cancer oo 80%
kansarka sababada ku dhaca waa dad tobaakada sigaarka cabi jiray oo la wada yaqaan. marka dhuuqidda sigaarku waa halis dadkayaga aysan ka warqabin. hadday noqoto caafimaadka jirka badanka waxay ku keentaa kansar oo samabada ah. esophaguska waxay ku keeni kartaa wadna xanuun iyo stroke-ba. waxaa dhici karta xagga maskaxdana nicotine addictionka ee qabatinkan ee sunta nicotinkaana in ay iyana ayba uga sii darto dhibabka kale ee xagga maskaxda inaga haystay ee dagaalada iyo culeysyada kale inaga haystay anxiety-ga iyo depressionka dadka iyaga haysta in ay iyana maxaan ku rahdaa ay sii labalaabayso oo laba kaclaynayso. waxaa jira xagga socialka xagga arrimaha bulshadana haddii dadka agtiisa lagu cabo waxaad arkaysaa mararka qaarkood waxaa la sheegayaa in hooyooyin guriga ay keenayaan oo shiisho lagu cabayo oo ilmihii markaa kuwa ay dhaleen iyo kuwa kale guriga joogaba ay exposure markaa ilmuhu halkaa second hand smoke uu ka dhaco. ilmo aysan ka warqabin ilmuhu kama warqabaan waxayna ku korayaan sigaar cab ama tubaakadaasi ayaa already samabadooda saameynaysa iyo qoysas badan bay taabatay ama dad badan baa agtaada ku cabaya oo shuruuc haddaanu lahayn. xagga diintana oo spiritualna waxaa muhiim ah in aynu ogaano in diinta iyadoo aysan ogoleen qofka naftiisa inuu dhibaato u geysto sida axaadiista iyo aayaadka qur-aankuba ay inoo sheegayaan oo loo baahan yahay dadka iyagu in ay u foojignaadaan arrinta noocaas oo kale ah. marka waxaan kusoo xirayaa waxay tahay dadka iyagu degmada ay degan yihiin hadday tahay degmo level iyo hadday tahay maamul ka sarreeya oo goboleed iyo hadday tahay maxaa la dhihi jiray mid federal system ah waxaa looga baahan yahay waxay tahay in qiimeyn joogto ah lagu sameeyo oo dabagal lagu sameeyo sigaarka yaa cabaya, vapinkan ee e-cigarettekan shiishadu xaggay yaa caba, la taarget gareeya dadkaasi oo markaa si loo ilaaliyo caafimaadka dadka iyagu waa in dadka laga joojiyaa si kastoo ay ku joojin karaan. hadday noqon lahayd wacyigoodii aqoontooda kor loo qaado laga raarido inay ka joogsadaan. in baaritaano joogto ah la sameeyo sababta keenaysa qofka ma stress baa ma peer pressure baa iyo maxaan ku rahdaa kambaniyada iyo cidda markaa marketing keenaysa miya waa in la ogaadaa. waxaa kaloo muhiima in dadka iyaga lala hadlo oo si ay hadday noqoto culimmada masaajidda ay ka hadlaan ama iskuullada ama radioga in aada looga isticmaalo oo dadku lagu wacyigeliyo. maxaa yeelay sida sawirkaad ku aragteen gabadhu waxay tiri ee teeri ahayd I wish I never have seen maxaan ku rahdaa tobacco. waxaan jeclaysan lahaa 53 sano ku dhimanaysaa gabadhaasi. marka sidaasoo kale dadka iyaga haysta 50 jiro 60 jiro oo maantay kansarka hadday noqon lahayd kan dhuunta hadday noqon lahayd samabada hadday noqon lahayd kuwa aanan neeftaba qaadan karin oo mashiino u baahan kuwa jooga dibadda. maxaan ku rahdaa what about ayaan doonaya inaan dhexe kuwa wadankii jooga aan awoodi karahayn in ay helaan basic caafimaad wixii loo baahnaa. waxaa kaloo looga baahanya nidaamka caafimaadka markaa deegaanka ka jira inuu dadka u diyaariyo maxaa la dhihi jiray serviceka ay u baahnaayeen maadaama dad badan ay pipelineka kusoo jiraan in ay sanbab maxaan ku rahdaa lung cancers, esophagus cancers, you name it. waxaasoo dhan maadaama dadku ay doorteen in ay sidaa u dhaqmaan kadibna waa in loo diyaariyaa xarumihii secondary tertiary hospitalskii dadkaasi teekargareen lahaa. waxaan jeclaan lahaa dadka iyagu in ay arrinta u foojignaadaan oo ay yareeyaan dhibka gaaraya naf ahaan iyo qoys ahaan iyo qaran ahaanba.